odayaasha cuqaasha waxgaradka iyo dhalinyarada beesha degta degmada Nasiyo oo ka tirsan gobolka Togdheer oo shir jaraa'id ku qabtay Hotel Palace ee magaalada Burco ayaa markii u horeysay si weyn u dhaliilay wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed oo ay sheegeen inuu qayb ka yahay muran la dhex dhigay beelaha wadada deegaanka Nasiyo isla markaana waxay sheegeen in wasiirku soo taagay xadhigga jarka xafladii degmada Nasiyo sidoo kale waxa ay cuqaasha iyo waxgaradka beeshan wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland ku eedeeyeen inuu qayb ka ahaa xilka qaadis lagu sameeyay isuduwayaal iyo mas'uuliyiin beesha ka tirsan oo xilka laga qaaday muddadii uu xilka hayay ugu dambeyn odayaasha iyo waxgaradka beeshan ayaa ugu baaqay madaxweynaha Soomaaliland inuu arrintan wax ka qabto sidoo kale waxay carrabaabeen inay sida ugu dhaqsaha badan u qaban doonaan xafladda xadhigga jarka degmada Nasiyo waxa aanu leenahay oo aanu maanta ka hadlaynaa annagoo ah bulshada u dhalatay magaalada Nasiyo ee reer Biniin ee ku hawshootay degmadeeda in badanna ka soo shaqaynaysay ee maanta marka ay kanuuniga timi ee uu walqasheedu ay timi la carqaladaynayo waxaanu leenahay arrintaasu waa arrin aan habboonayn waxaan leeyahay magaaladaas way soconaysaa waana dawlad baa ansixisay degmadeeduna way saxan tahay wax joojin karayaana ma jiro wasiirka arrimaha gudaha isagoo xogogaal u ahaa oo degmadeeda ogaa oo uu waxa weeye ahaa raggii waxa weeye deegaanka ku lahaa ay ahaa oo raggii ku dhashay ahaa maanta marka ay walqasheediisa soo taagtay degmadaasu way soconaysaa kana noqon mayno waxaan leenahay kala soo qayb galo dhinaciina xuquuq waxa u leedihiin u kaalaya ciddii ay degmadana waxa ka talinaysa cidda deganuun cidda degan bay qusaysaa nimaan deganayn waxba ka weydiin mayno nimaan deganayn oo bina ku lahayn waxba ka weydiin mayno waxaanu leenahay arrinkaas wasiirkana waxaan leenahay haddii si khaldan wax loogu sheegayna ka noqo oo amar degdeg ah baanu kaaga fadhinaa soo bixi inaad waxa weeye aad hadalka xaal iyo boolojis ka bixiso haddii adiga ay ka soo fushay oo aad adigoo ogay ka soo fushana dee waanu ka tashan doonaa haddii ilaahay nala qabto sida ugu dhaqsaha badan leh annaguna waa guuraynaa oo degmadii baanu tegaynaa waa diyaarinaynaa xafladdii degmada loo qaban lahaa iyo martiqaadkii intaba waanu diyaarinaynaa dibna u dhigi mayno dib uma dhigayno way naga soo shingoodayoo xilligeedii baa taagan degmada haddaan in yar dib ugu noqdo cid nagala shaqaysay oo beelaha Nasiyo yaalla iyo kuwa kale ee deriska ah cid nagala shaqaysay ma jirto 20 sannadood baan soo wadnay kharash fara badan baan nagaga baxay cid kharashka nala leh aan ilaaha raxmaanka ah iyo hantidayada ahayn ma jirto afin dawladda maanu khilaafin xisbigeedana maanu khilaafin madaxda xisbiga laga doortay madaxweynaha hore iyo kanba halkiisaan ku ayeedsanay qarankaanu ayeedsanay waxaanu halkan ka cadaynaynaa oo u sheegaynaa xukuumadda in waxa weeye arrinta laga hadlayo magaalada Nasiyo carqaladda koobaad ee dul taagan ee waxa weeye dul hoganaysa ay tahay wasiirka arrimaha gudaha oo beel ku sifoobay beeshiisii ku sifoobay in badan baanu qarsanaynay ciilqa baanu aragnaa intii wasiirka noqday 7 agaasimo gobolka shaqayn jiro Axmed Faarax lahaa ayuu ka dareeriyay Maxamed Kaahin waxaanu leenahay xusbiga kulmiyow kala doorasha soo socota burco annaga adeerka majority ninna naguma gumaysto burco annaga ka majority kala dooro Maxamed Kaahin iyo Axmed Faarax kala dooraanu leenahay xukunka waxaa loo gashaday shaarka waxaa loo gashaday oo naga sifeeyay oo ciilqaba ah ninka Maxamed Kaahin waxaanu leenahay degmada Nasiyo annagaa ku tacabnay way soconaysaa nin laga baryi maayo wasiirku waxa weeye nin beesha ka dhashay anagu beel khaasa uma aanan tirinayn waanu kala han weynayn wuxuu wasiiru ahaa Nuux Maxamed wuxuu wasiiru ahaa habar jara galbeed wuxuu wasiiru ahaa habar jara oo dhan wuxuu wasiiru ahaa wasiirka gudaha u ahaa Soomaaliland oo dhan oo uu ku mataliyo kursiga ku fadhiyo waa nasiib darro maanta hadduu qoys noqday oo uu ku cadaaday oo hawshii reerkooda u ashkatooday uu joojiyay waxaan u sheegaynaa Soomaaliland dee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland
reerkaa baaxaddaa le axmed faarax weyne iyo ha kala doorto dee maxamed kaahin axmed waayo wax badan baa nasiye laga qabtay xukuumadda maanta jirta waxba kumay darsanin waxalla waxay ku darsatay ma jirto beelo kale oo degaanaa sida la sheegay halkan laga sheegay waxba kuma darsanin laakiin beesha reer biniin baa aad iyo aad ugu soo tacabtay tacabkana waxaa loo qabtaa in la wada maalo maanta waxay soo gaadhay in xadhigga laga jaro oo maamulkii iyo waxqabadkii la qabtay iyo horumarkii la muujiyo laakiin nasiib darro waxaa is hortaagay wasiirka arrimaha gudaha maxamed kaahin oo aad iyo aad aanu ugu hanweynayn ugana hanweynayn meelaha qaar inuu farageliyo ama siyaabaha qaar inuu u dhaqmo aanu aad iyo aad uga hanweynayn wasiirro badan baa soo maray beesha isaguna waa wasiir beesha ka mid ah laakiin aad iyo aad waxaanu aad iyo aad uga xumahay inuu maanta inuu beeshii kala munaafaqadeeyo iyo inuu maxay ahaydee deegaamadii beesha loo kala riixo doonaya inaad ku xasuusato magaalada fardihii lagugu soo dhoweeyey in adigaba lagu guddoonsiiyey oo la yidhi muuse ayaa leh madaxweynahaa leh mustaqbalka magaaladu horta taa weeye maxamed kaahin annagu berigu yaraa isku dhallinyaraannu hayno waa isniqiinnay sidaasaan anigu ka filaya annagoo isniqiinnay sidaa uu imanka yeelay baan ka filaye inuu ka soo reeyo kama filaynin awalan waxaanan sidaa uga filaya aqoon aan iqiinnay weeye waxsaan islahaa magicii kaahin axmed buu soo higsan doonaadoo marka uu weynaaduu oday noqdo halkii kaahin axmed buu imanayaa cabdiraxmaan xasan cabdulaahi wararka SBC magaalada Burco.